dowladaha Imaaraadka Carabta, Kenya iyo Ethiopia weli ma aysan cadeynin mowqifkooda ku aadan tallaabada guracan ee duulaanka qaawan ee madaxbannaanida Soomaaliya ay Yuhuuddu ku soo qaadeen. waxaan idin la wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad ku saabsan qorshayaal guracan oo ay dowladahan damacsan yihiin. haddii aad igu cusubtiin ku soo biir page-kayga oo ka mid noqo saaxiibada ugu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama comment-ka kaga soo dhiib. hagaagkan ku bilaabo. dowladaha Imaaraadka Carabta, Ethiopia iyo Kenya oo daris la ah Soomaaliya ilaa imikan ma cadeynin mowqifkooda dhabta ah ee la xiriira duulaanka qaawan ee madaxbannaanida Soomaaliya ay ku soo qaaday Yuhuudda, isla markaana shalay gelinkii dambe ku dhawaaqday waxa ay ugu yeertay aqoonsi oo ay siisay maamulka Somaliland oo ka mid ah maamulada dalka ka jira. saddexdan dowladood marka la eego dowladaha kale ee dunida iyo ururada siyaabo kala duwan ayay qoraallo kala duwan u soo saareen, si adag ayayna u cambaareeyeen, garab istaag buuxa ayayna siiyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna kaga digeen Yuhuudda in ay sii wado damaceeda la xiriira kala qaybinta iyo kala dhantaalida midnimada dadka Soomaaliyeed. saddexdan dowladood su'aalo ayaa dul hoganaya sababta ay kaga aamusan yihiin. hase ahaatee xogo iyo macluumaad kol hore la baahiyay ayaa xaqiijiyay in Imaaraadka Carabta, Ethiopia iyo Kenya ay qayb ka yihiin dowladaha daneynaya inay ku dhawaaqaan waxa ay ugu yeereen aqoonsi oo ay siinayaan Somaliland. waase tallaabo lagu tilmaamay in tani ay dhabarjab xoogan ku noqon doonto saaxiibtinimada iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. saddexdan dowladood waxa ay qayb ka ahaayeen xiriirada wasaaradahooda arrimaha dibadda oo ay villa Soomaaliya saacadii ugu dambeysay ay sameysay, waxaana xiriiradaasi durba ka soo jawaabay dowlado dhowr ah iyo ururo ay xubno ka ahaayeen oo si adag u cambaariyay tallaabadan guracan ee Yuhuuddu ay soo qaaday ee dhaawici karta midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed. waxaase qoraaladii ay soo saareen ay kaga digeen Yuhuuddu inay sii wado tallaabooyinkan guracan. Ethiopia, Kenya oo daris la ah Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa la rumaysan yahay in hoggaanka Somaliland kol hore ballanqaadi kala duwan ay u sameeyeen una ballanqaadeen inay siin doonaan waxay ugu yeereen aqoonsi oo ay muddo 34 sano ah ay baadigoobayaan oo ay ku dhiiran waayeen dowladaha waaweyn ee dunida ka jira, iyadoo uu Israa'iil oo aqoonsi haysan ay ku dhiiratay tallaabadan oo galinkii dambe ee shalay ay qaaday. waxaase la tilmaamayaa in Somaliland dhaba mugdi ah uu ku hagayo hogaamiyahooda Cabdiraxmaan Cirro, waxaana ay arrintan sababi kartaa in dhaawac weyn oo dhinaca amniga, dhaqaalaha iyo kaabayaasha kala duwan ee ay Somaliland muddada dheer ay soo dhisaysay ay dhaawici karto tani, maadaama dowlado waaweyn ay xurguf siyaasadeed kala dhaxayso Israa'iil, isla markaana ay doonayso in dowlado daris la ah Soomaaliya ay kaga duusho Israa'iil oo diidmo adag ay ka qabto siyaasad ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba. dowladahan ka hadlid la'aanta mowqifkooda arrintan ku saabsan waxaa loo tirinayaa inay cabsi iyo baqdin xoogan ay ka qabaan Yuhuudda oo ay xiriir dhow la leeyihiin, lana aaminsan yahay in siyaasadahooda arrimaha dibadda Yuhuuddu ay si toos ah u maamusho. haddii aad isweydiinaysay maxay Ethiopia, Imaaraadka Carabta uga hadli la'yihiin mowqifkooda arrintan la xiriira ee aqoonsiga wax loogu yeeray ee Somaliland siisay Yuhuudda, tani ayaa kaaga filan jawaab. Kuwait, Jordan, Qatar, China, Mareykanka iyo ururo kale oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan aqoonsiga Israa'iil ay aqoonsatay maamulka Somaliland. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka taleefanka kula hadlay madaxda dalalka inta badan bariga Afrika maxay ka wada hadleen, muxuu yahay go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku aadan aqoonsiga maamulka Somaliland uu ka helay Israa'iil. qodobadaas ayaanu falanqeyn doonaa. soo dhawaada saaxiibayaal. hagaag ugu horeyntii haddii aynu ku bilaawno sida inta badan aynu la soconno, maamulka Israa'iil ayaa dhowaan shaaciyay aqoonsi uu siiyay ama uu saxiixay ra'iisul wasaaraha dalkaasi, kaasi oo lagu aqoonsanayo maamulka Somaliland inuu yahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. waxaa durba soo hadlay qaar ka mid ah dalalka Carabta sida Qatar, Kuwait, Jordan iyo sidoo kale waddanka China, kuwaasi oo cadeeyay mowqifkooda ku aadan inaysan taageersaneen in la farageliyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu wareysi siiyay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalka Mareykanka ka soo baxday ayaa waxa uu sheegay in uusan ku degdegi doonin aqoonsiga Somaliland isagoo sheegay ama ay cadeeyay in loo baahan yahay in la ogaado waxa ay tahay Somaliland. marka laga yimaado arrimahaasi waxaa dhawaan madaxtooyada Soomaaliya ay baahisay bayaan ku aadan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu khadka taleefanka kula hadlay qaar ka mid ah madaxda dalalka bariga Afrika. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo sidoo kale ah hogaamiyaha urur goboleedka IGAD oo ay Soomaaliya qayb ka tahay ayaa ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu khadka taleefanka kula hadlay waxaana uu gudbiyay walaaciisa ku aadan arrinkan faragelinta ah oo Israa'iil ku dhaqaaqday. sidoo kale madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo ah hogaamiyaha bulshada bariga Afrika ayaa ka mid ah madaxda taleefanka kula hadlay waxaana dhammaan ay la wadaageen in aysan ogolaan doonin in la farageliyo ama la kala qaybiyo Jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxda Uganda iyo Tanzania ayaa sidoo kale ka mid ah mas'uuliyiinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khadka taleefanka kula hadlay. bayaan ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya ayaa si adag loogu cambaareeyay go'aankii ay ku dhaqaaqday Israa'iil kaasi oo ay ku sheegtay inay aqoonsatay Jamhuuriyadda Somaliland sida lagu baahiyay muuqaal baraha bulshada wareegayay tan iyo shalay. marka aynu ka nimaadno arrimahaasi gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho madaxtooyada dalka looga arrimiyo waxaa ka soconaya kulamo abaabulkooda si aad ah looga dareemayo magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ilaa iminka ah mas'uulka ka hadlay arrintaasi isagoo si cad u sheegay in Israa'iil ay ku kacday fal ka baxsan shuruucda caalamiga ah iyadoo faragelin muuqato ku sameysay sida hadalka uu dhigay madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararku waxay sheegayaan in uu abaabulayo kulamo waaweyn kuwaasi oo lagu mideynayo siyaasadda guud ee gudaha dalka isagoo markan la sheegayo in madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale hogaamiyayaasha madasha samata bixinta ee mucaaradka ahba ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho uu khadka taleefanka kula xiriiray isla markaana uu ka codsaday kulan weyn oo ay isugu yimaadaan madaxtooyada dalka. ilaa iminka ma cadda mas'uuliyiintaasi inay aqbaleen in kale balse xogaha hordhaca ah ee aanu helayno waxa ay sheegayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu abaabulayo kulan aad u xoogan isla markaana ay ka soo qayb galayaan inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee Soomaaliya kaasi oo lagu mideynayo xuduudda isla markaana lagu difaacayo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliya. deegaanada waqooyi ee Soomaaliya oo markii hore la midoobay koonfurta ayaa tan iyo burburkii dowladda militariga ee Soomaaliya 91dii waxa ay ahaayeen ama ay sheegayeen in ay yihiin dal madax banaan iyagoo markaas raadinayay ictiraaf ama aqoonsi. warar soo baxay ayaa sheegaya inay jiraan siyaasado isbiirsanaya kuwaasi oo gadaal ka riixaya arrinka ay ku dhaqaaqday Israa'iil waxaana warar aanu helayno ama xogo hoose ay sheegayaan in dalal ay ka mid yihiin Itoobiya, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale South Sudan ba ay qorsheynayaan in ay raacaan talaabada Israa'iil. qorshahan ayaa ila wareedyo dhanka ammaanka ah waxa ay sheegayaan in ay gadaal ka riixayaan Israa'iil iyo Imaaraadka isla markaana Itoobiya ay qayb ka tahay. waxaa la qorsheynayaa in marka la aqoonsado Somaliland isla markaana ciidanka Itoobiya ay saldhig weyn ku yeeshaan deegaanada xeebta ee Somaliland iyagoo halkaasi ka weerari doona xuutiyiinta dalka Yemen ee Baabul Mandab ku xoogan. Israa'iil markii ay gashay dagaalka Falastiin iyo sidoo kale Iiraan kooxda xuutiyiinta Yemen ayaa waxa ay si aad ah u beegsadeen maraakiibta Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay maraya badda caalamiga iyo sidoo kale badda cas iyagoo markaasi ka soomiyay ama markaasi u diiday inay isticmaalaan biyaha gacanka Baabul Mandab. arrintan ayaa loo arkaa haddii ay hirgasho in Somaliland ay siisanayso ictiraafka ama aqoonsiga ay dalalkan u ballan qaadeen in markaasi saldhig weyn ay Itoobiya ciidankeeda badda ka siiso deegaanada gobolka Awdal. wixii warar ah ee ka soo kordhay xiisadan iyo xaaladan halkan ayaad kala socon doontaan daawadayaal.